qalbi jab weyn baa ummadda ku dhacay. waxaa lafdhabar oo ah dhibaatada jirta waddankii oo u baahan ummadda qalbigooda inaad la hadashid, ummadda inaad midaysid, caqliga Soomaaliga iyo shilinka Soomaaliga in lagu meel maro haddii adduunyadii waxaynala qaban weyday. waxaan tuhunsannahay meeshii adayg iyo go'aan geesinimada looga baahnaa inaadan la imaanaynin. 100 goorna lagu sheegay wax tale oo kaa dhiman ma jiro. madaxweyne su'aashu waxaa weeye ma dhaqankii horaad ku socon isa waad isbedeli. walaalow go'aan madaxweyne oo go'aan xumida naga daa, go'aan geesinimo la qaado. waddanku dagaal buu ku jira, badbaadi dadka aad u dhiiban meelaha. marka marxaladan oo kale lagu jiro waxaa la doortaa dadka muwaadiniinta, dadka waddankan daacadda u ah. waxaa dhibaata ay ka jirtaa oon qarsoodi ahayn marar badan ninba ninkuu ka xumaa oo laga cawdu bilaysan inaad meelaha halisa u dhiibi, taasina waa musiibo. aniga waxaan ila xukuumadihiina soo maray markii burburka dhaca kadib laga soo bilaabo cabdulqaasim laga soo bilaabo ilaa dalwiiman 4 walxaat ay xukuumaddan ay samaysay dowlad samaysay ma jiro. waxa ay samaysay dowladdani oo koowaad maalinta ay timid ilaa maanta ay joogto mushaarka shaqaalaha waxaa nagu maqaano ah oo macluum 28 laga bilaabo ilaa bisha 3 laga gaaray in la baxsho dowlad samaysay ma jirto. qodobka labaad wax alla wixii maxaabiis adduunka ku uray ay jasheen markaasay koox u keeneen, hadday hindiya tahay, hadday libiya tahay, hadday yeman tahay, hadday meelo kale tahay. dowlad ku guulaysata oo waxaa samaysa ma jirto. ayagoo 1 sano iyo bilo ay joogaan. qodobka saddexaad dowladda waxaa diray khaliijkaa diray. khaliijka markuu diray waxay yidhaahdeen hadda allah ku ruun yahay dowladdu waxay tiri annagu dhexdhexaadan ka nahay dadkaas walaalahay. qodobka afaraad soomaaliya waxaa ugu yaqaan taariikhda inay tahay 190 dowladood midda ugu hooseyda xagga musuqmaasuqa ama ugu sarreysa inay tahay oo dowlad ka sarreysa musuqmaasuqa aysan jirin. marka xukuumaddan ay timid waxa weeye waa shaqay qabatay ilaa laga gaarsiiyo in la yidhaahdo daynta Soomaaliya lagu hayana waa laga dhaafayaa.